السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaal dhacdadan aan maanta inoo wadaa waxay wiigii hore ka dhacday wadanka Hindiya khaasatan gobol la yiraahdo Rajasthan. Aabahan sawirkiisu idin muuqdo ayaa waxa uu warka waayay saddexdiisii gabdhood ee uu dhalay. Saddexduba waxay lahaayeen guryo waxaana qabay saddex nin oo walaalo ah halka ay ku noolaayeen hal guri saddexda walaalo ah iyo saddexdan kale qaba. baaritaan markii doonay odaygii gabdhihiisii ka warwaayay waxa uu u sheegay dadkii tuulada iyo magaalada kula noolaa ka bacdiina baaritaan ayaa la galay iyo baadidoon ilaa ugu dambeyntii meydkii saddexdii gabdhood iyo laba caruur awoow u yahay ka helay ceel ku yaala magaalada. odaygii waxa ku dhacay fajac iyo mucjiso inkastaanay wadanka Hindiya isdilidu ka tahay wax caadi ah. booliskii markii meeshii soo galeen oo baaritaan baadheen waxay ogaadeen habeenkii ay isdilaayeen gabdhahani in mid ka mid WhatsApp-keeda soo dhigtay iyada oo leh noloshan adag aanu ku jiro waxa dhaanta geerida. sababtuna waxay ahayd markii nimankoodu ku caayeen kuna aflagaadeeyeen maxay tahay meher markaan idhaahdo waad yaabi doontaa laakiin adduunku isku wada mid maaha. wadanka Hindiya dhaqamadiisa aadka ula yaab kale ayay ka mid tahay in gabdhuhu bixiyaan meherka iyo alaabta arooska. odaygan oo hadan yarayaan awoodin inuu meher fiican iyo alaab fiican gabdhihiisa ku daro sida la ajligeedna gabdhihii waxay la kulmeen cay joogtaa dhaga hadal iyo gacan ka hadalba ilaa ay ugu dambeyntiina isdileen una adkaysan waayeen. wadanka Hindiya sanad walba dhacdadan oo kale way ka dhacdaa waxaana isdila kumanaan kun oo haweena. waxaynu odhanaynaa alxamdulilaahi calaa nicmatul islaame. dhacdadii markii la baadhayna waxa la ogaaday badee inay nimankoodu sabab u ahaayeen gabdhahani inay isdilaan. waxa dhacday oo kale in haweenka wadanka Hindiya haddii lasoo furo ayba ka tahay ceeb iyo gabadhu yacni ama god ha kaaga jirto ama guri. waa mahmah khaldan oo Soomaalidu ku mahmahda taa ayaaba dee iyaga waxaynu odhan karnaa halka qur-aanku inoo joogo ayayba u joogtaa. hadda markaan saa ku leeyahay Hindiya waa gobol aad u weyn waana dadka labaad ee adduunka ugu badan. muslin iyo gaalba waa laga soo helayaa inkastay ku badan yihiin dadka haysta diinta Hinduuga taasoo aaminsan in gabdhaha haddii lasoo furo ay tahay lacnad amaba cadho ku dhacday oo aan gabadha dilku u fiican yahay. laakiin muslimiintoodu ma aha kuwa waxaas oo dhan qaba ee waa kuwa sida dadka muslinka isku guursada iyo sunnadii rasuulka. waan rajeynayaa inaad ka heshay channelka subscribe saar gambaleelka furo fiidiyoyadana like saar.